الإنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الإنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu ka hadlaynay kitaabkeenii ahaa matnul aajurumiya ee ka mid ah ama bilow u ahaa cilmiga naxwaha. waxa aynu soo gaarnay darsigeennii 13aad ee kitaabka. waxa aynu ka hadlaynay xarafyada wax hoos dhigo ama xuruuful jarri ayaynu ka hadlaynay. waxa aynu soo gaarnay xarafka ah fi. waxaan arkaynaa kalimaadka af carabiga ama qur-aanka ama sunnada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh fi waxa ay gasho in la hoos dhigayo. fi lbeyti, fi lmasjidi, fi طariiqi. macnaa fiidaasi magaca ka dambeeyo mar kasta waa la hoos dhigayaa. waxa hoos dhigayana waa fiida. fiida ayaa waxa ay ka mid tahay xarafyada wax hoos dhigo ama xuruuful jarri. tusaale marka aynu soo qaadano addaalibu fi lfasli. addaalibu ardaygii fi lfasli fasalka dhexdiisa ayuu ahaaday oo fasalka ayuu ku jiraa. marka aynu leenahay waxaa noo muuqanayo fi lfasli kelimadaasi alfasli in la hoos dhigay ayaa noo muuqanaydo. waxa hoos dhigayana waa fiidaas ayaa hoos dhigaydo. addaalibu fi lfasli. ashaykhu fi lmasjidi marka aynu niraahdo ashaykhu fi lmasjidi waxaa noo muuqanayso almasjidi in la hoos dhigayo oo aan la dhehaynin almasjida ama almasjidu. waxa hoos dhigayo almasjidi ka dhigayana waa fiida. marka fiidu waxa ay ka mid tahay xarafyada wax hoos dhigo. marka aynu icraabno addaalibu fi lfasli waxaynu leenahay addaalibu mubtada-un. horay ayaynu usoo qaadanay icraabka aljumla alismiya. waxaynu ku qaadanay darsigeenna labaad ee kitaabka. addaalibu fi lfasli waxaynu leenahay addaalibu mubtada-un marfuucun bilibtidaa'i. addaalibu waa mubtada, waa ismigii jumlada lagu bilaabanayay. mubtada marfuucun waa la godayaa markaasi mubtadaha addaalibu. bilibtidaa'i bilaabashadaas lagu bilaabanayo ayaa godayso. wa calaamatu rafcihi godkiisa waxa calaamo u ah waxa daliil u ah in la goday oo lagu garan karaa dammatun dammada daahiratun ka muuqata fii aakhirihi. addaalibu ba'da waxa saaran waa damma. fi lfasli waxaynu leenahay fii xarfu jarin waa xaraf wax hoos dhigo ayaynu leenahay. fii xarfu jarin. alfasli majruurun waa la hoos dhigayaa bifii. fii ayaa hoos dhigaydo. alfasli majruurun bifii. wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi. alfasli majruurun waa la hoos dhigayaa bifii. fii ayaa hoos dhigaydo. wa calaamatu jarihi hoos dhigiisa waxa calaamo u ah oo lagu garan karaa kasratun kasrada daahiratun ka muuqata fii aakhirihi. meesha u dambeyda alfasli laamka maxaa ka muuqanaya kasra. kasradaasi waxa ay calaamo u tahay hoos dhig. wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi. aljaaru walmajruuru kan wax hoos dhigay oo fiida ah
iyo kan la hoos dhigay oo alfasli ah mutacalliqun bimaxduufin ku jaran oo meesha ka maqan ayay ku dhegayaan taqdiiruhu kaa'inun. taqdiirkiisa iyo niyeysigiisu wuxuu noqonayaa kaa'inun buu noqonayaa. maxaa yeele filfasli fasalka dhexdiisuu ahaaday baad leedahay. ahaadaydaa soomaaliga ayaad carabi u bedelanaysaa marka. addaalibu ardaygii filfasli fasalka dhexdiisa ayuu ahaaday macnaa ku jira. ayuu ahaadaydaasad marka waxaad u bedelanaysaa carabi. kaa'inun bay kuu noqonaysaa marka. aljaaru waalmajruuru mutacalliqun bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun. kaa'inun khabaru lmubtada'i marfuucun bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirihi. waxaan filayaa mubtadaha iyo khabarka in badan inaan soo sharaxnay oo sharaxaad kale aysan u baahanayn. addaalibu fi lfasli marka addaalibu waa mubtada. mubtadahana sida aynu soo qaadanay wuxuu u baahan jiray khabar. khabarkii waxa uu ku dhex jiraa filfasli. filfaslidaas ayuu ku jiraa. waxaa leedahay aljaaru waalmajruuru mutacalliqun bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun. kaa'inun taas godan ayaa marka khabarkiya. addaalibu ardaygii filfasli fasalka dhexdiisa ayuu ahaaday. waxaa la mid noqonaya ashaykhu fi lmasjidi. ashaykhu shaykhii fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ayuu ahaaday. hadda almasjidi waa ayada la hoos dhigay. waxa hoos dhigaya fiidu magacyada ayay hoos dhigaysaa. ashaykhu mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirihi. fi lmasjidi fi xarfu jarin almasjidi majruurun bifii wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fi aakhirihi. aljaaru waalmajruuru mutacalliqun bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun. kaa'inun khabaru lmubtada'i marfuucun bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirih. waxaa la mid noqonaya khaalidun fi lgurfati. khaalidun fi lgurfati khaalid qolka ayuu ku jiraa. khaalidun waa mubtada. waa yacni jumlada meeshii laga bilaabanayay waa kii lagu bilaabanayay. magacaasi lagu bilaabanaya waxa aynu soo qaadanay mar kasta in la godaayo khaalidun in la leeyahay. khaalidun mubtadaun marfuucun waa la godayaa bilibtidaa'i bilaabashada lagu bilaabanaya godayso. wa calaamatu rafcihi godkiisa waxa daliil u ah waxa calaamo u ah in la goday damatun daahiratun fi aakhirihi. damada aakhirka ka muuqato. waxaa leedahay markaasi fii xarfu jarin baad leedahay. fii waa xaraf wax hoos dhigo. alqurfati waxaa leedahay majruurun waa la hoos dhigayaa bifii ayaa hoos dhigaydo. wa calaamatu jarihi alqurfati hoos dhigiisa waxaa calaamo u ah kasratun daahiratun fi aakhirih. marka khaalidun mubtada ayuu ahaa. hadalkii meeshuu ku dhammaan lahaa khabarkii baa kaa maqan. waxaad leedahay aljaaru waalmajruuru mutacalliqun bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun. kaa'inun khabaru lmubtada'i marfuucun bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirih. almudiiru fi lmaktabi ayaa lamida. almudiiru fi lmaktabi maamulku xafiiskuu ku jiraa ayaa lamida. almudiiru fi lmaktabi fiidii ayaa gashay la dhihi maayo filmaktaba ama filmaktabu la dhihi maayo. filmaktabi fiidaas waxbay hoos dhigaysaa. almudiiru fi lmaktabi. ashaykhu fi lmasjidi. addaalibu fi lfasli. caliyun ama khaalidun fi lgurfati. marka fiidu magacyada ka dambeeyo mar kasta sida ayaa loo hoos dhigaa. qur-aanka waxaan ku arkaynaa fi lardi iyo fi samaa'i. yacni fiida magaca ka dambeeyo mar kasta wuu hoos dhigan yahay. waxa hoos dhigayana waa fiida. xarafyada wax hoos dhiga waxaa ka mid noqonaya ruba ayaa ka mid noqonayso. ruba
magacyada ayay hoos dhigtaa. laakiin sida asmaada kale ma ahane rubba waxay yidhaahdaan magac kasta ma gasho oo shuruud bay iska leedahay. rubba shuruudeeda waxaa ka mid noqonayo an takuuna musadaratan, waa in la hor bilaabo, la hormariyo. yacnii xarafyada wax hoos dhigo ma lagu bilowdo, laakiin ayada waa lagu bilaabanayaa. rubba rajulin baad leedaha, rubba rajulin an takuuna musadara. waxaa shardiga an yakuuna smuhaa daahiran, magaceedu waa ismi daahira inuu yahay. ismiga damiirka iyo gelimayda ayada, ismi daahira kaliya ayay gelaysaa. an yakuuna ismuhaa daahiran. waxaa shardi ah an yakuuna smuhaa nakiratan, magaca rubbadu ay hoos dhigaydo magac nakira ah oo dad badan ay soo hoosgeli karaan ama afraad badan ay soo hoosgeli karta waa inuu ahaadaa. rubba rajulin marka la yidhaahdo, rajulin waa ismi daahira, ismiga daahirka hore ayaynu usoo qaadanay. waana ismi nakira ah. nakirada waxaa la yidhaahdaa waa ismi wax badan ay soo hoosgeli karaan. hadda rajulin markii la yidhaahdo nin kasta wuu ku jiraa, nin kasta noocou doona ha noqdee, muslim walaa gaal walaa maaragtay faqiir walaa qani, rajul waa soo wada gelayaan. marka magaca rubbadu ay gelayso waxaa shardi ah nakira inuu yahay, magac oo maaragtay afraad badan si soo hoosgelayaan. an yakuuna smuhaa nakiratan, an yakuuna smuhaa mawsuufan, waa in la tilmaamo oo la yidhaahda rajulkaasoo kariimin wanaagsan. waa ismigaa rubbadu ay hoos dhigto inuu tilmaam yeesho. rubba rajulin, rajulkaasoo kariimin wanaagsan, waa in la tilmaamo ninka. rubba rajulin, rajulkaasoo bakhiilin. rubba rajulin, rajulkaasoo caalimin, waa in la tilmaamo, waa shardi. an yakuuna smuhaa mawsuufa, rubbadu magaca ay hoos dhigto waa in la tilmaamaa. wa an yakuuna caamiluhaa mu'akharan canhaa, caamilkeeduna waa inuu ka dambeeyo. lacalla haddii ay qabi lahayd maba qabto, aljaaru walmajruuru haddii ay yeelan lahayd meeshii lagu dhejin lahaa way ka dambeydaa ayada. waxaa rubbada shuruudeeda ka mid noqonaya an yakuuna ficluhaa maadiya, ficilka rubbadu ay hoos dhigaydo waa ficil maadi inuu yahay. marka aynu nidhaahdo rubba rajulin caalimin ra'aytuhu, rubba rajulin caalimin ra'aytuhu, rubbadii musadara way tahay oo hadalkii waa lagu bilaabay an takuuna musadara. ismiga rubbadu ay hoos dhigtay rubba rajulin waa ismi daahira, waa ismi daahirna waynu soo qaadanay waxa uu yahay. rubbadu ismiga ay gashay waa ismi nakira ah oo rajul looma ogola shaksi gaara inay gasho. rubba caliyin iyo rubba khaalidin iyo maxaan ku ihahdaa rubba cuthmaana, la magac gaara lama gelinaayo. waxaa la gelinayaa ismi nakira ah oo afraad ama dad badan ay soo hoosgeli karaan. rubba rajulin, rajulin waa nakiro. waxaa shardi ahayd haddana in la tilmaamo an yakuuna smuhaa mawsuufa. rubba rajulin, rajulkaasoo caalimin baa lagu tilmaamay, ama jaahilin ama kariimin ama bakhiilin. ficilka ay ku dhegi lahayd haddii lacalla ay dhegi lahayd wuu ka dambeeyaa. an yakuuna caamiluhaa mu'akharan canha, ficilkuna waa maadi ra'aytuhu, an yakuuna ficluhaa maadiya. marka rubba waxay noogu imaan doontaa mar labaad makhfuudaat lasmaa, magacyada la hoos dhigo kitaabka aakhirkiisa insha allah. magacyada wax hoos dhiga waxaa ka mid noqonaya ba'da, walbaa, rubba walbaau, ba'duna waxbay hoos dhigtaa. maxaa la leeyahay bilbeyti, ba'daasaa hoos dhigaydo. bilmasjidi, ba'daa hoos dhigaydo. birajuli baa la leeyahay alrajuli, ba'daa hoos dhigaydo. bilgulaami, birajuli, bilmar'ati, bilgurfati, bilcayni, binniqaabi. waa kaas ba'du magacyaday hoos dhigaysaa. birijaali, marka waa kaasa ba'du waxbay hoos dhigtaa. marartu biljibaali markaad tidhaahdo, marartu birajuli, marartu bicaliyin, marartu bilbeyti, marartu bilgulaami, marartu bilmar'ati. ba'du ayaduna magacyaday hoos dhigtaa. albaau min xuruufi ljari, ba'du waxa ay ka mid tahay xarafyada wax hoos dhigo.
marka aynu aragna baa magaca ka dambeeya markasta wuu hoos dhigan yahay bilmasjidi iyo biariiqi iyo bilghaybi aladiina yu'minuuna bilghaybi baadaas ayaa gashaya hoos dhigayso billaahi wagarakum billaahi algaruur billaahi bilbayti alcatiiq bilmasjidi bilcayni bilanfi biariiqi baadu ayaduna waxay ku jirtaa xarafyada wax hoos dhiga ayay ku jirtaa kaafka sidoo kale asaguna wuxuu ku jiraa xarafyada wax hoos dhigo markii la yiraahdo muhammadun kalqamari muhammadun kalqamari muhammad dayaxa ayuu u egyahay xagga iftiinka iyo xagga bilicda iyo xagga quruxda muhammadun kalqamari alqamari yaa hoos dhigayo kaafka muhammadun kalqamari caliyun kalbadri khadiijatu kalbaxri khadiijatu kalbaxri faarixun kannajmi xidiguu la mid yahay annajmi yaa hoos dhigaya kaafka kannajmi kalbaxri albaxri yaa hoos dhigaya kaafka kalbadri albadri yaa hoos dhigaya kaafka kaafku asaguna wuxuu ku jiraa xarafyada wax hoos dhigo muhammadun kalqamari see loo icraabaya muhammadun mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirih kalqamari alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin muxamed iyo dayax baa laysu ekaysiinayaa kaafku waa xarfu tashbiih waxbaa laysugu ekaysiinaa alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin alqamari majruurun bilkaafi wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fi aakhirihi aljaaru والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره محمد كالبحر ولمت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره كالبحر الكاف حرف تشبيه وجر حبو هوس دغا كافكو البحر مجرور بالكاف البحر كافكا هوس دغيو وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره مقعد وحوس دغا وحا كمid noqonaya laamka sida alxamdu lilaahi laamkaa hoos dhigayo alqalamu likhaalidin addaftaru licaliyin wakaasa licaliyin caliyin waxaa hoos dhigay waa laam likhaalidin khaalid waxaa hoos dhigay waa laam lilaahi allaahi waxaa hoos dhigana waa laam marka laamku wuxuu ku jiraa isaguna xarafyada wax hoos dhigo laamku magaca uu soo galo waa la hoos dhigayaa licaliyin likhaalidin lilmaaliki lilcaamili lilajiiri laamkaasaa hoos dhigaya lilaahi linnabiyi lilrasuuli laamku asaguna waxbuu hoos dhigaa alxamdu lilaahi see loo icraabaya الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لله اللام حرف جر الله مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره القلم لخالد ولمد الدفتر لعلي ولمد بين قنيسة مقعد حرفيدا وحوص لغا وحا كمد نقونيا واو القسم واو قدارت والله الله أيان قدارتي والفجر فجر كأيان قدارتي والتين والعصر yaa hoos dhigayo
واو القسم واو دارت أيا كجرة والشمس والطور والفجر وكتاب مسطور وكتاب والبيت المعمور والبيت الله سبحانه وتعالى والعصر العصر يا هوس دغه مركاس واو القسم واو قدارت والشمس الشمس يا هوس دغيو واو القسم با كجرو دار با ماشي اماتي والشمس بان كو دارتي والفجر بان كو دارتي اما كو دارنيا والفجر يا والشمس يا والتين يا والليل يا والطور يا والله يا ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة معها ورب الكعبة ووغا دارتا وانو هوس ديغو ورب الكعبة ايان كو دارتي سيدا انغو ان يرهدو كلمه ورب الكعبة دار ما نقونيس ورب الكعبة ربي وحلا دونيا ان لا هوس ديغا واو القسم كاسا هوس ديغايو ورب الكعبة والله والفجر والتين والعصر واوغا سحال يرادا واو القسم مغا كدنبه والله هوس دغا وحو كجيرا حرفيده وحوس دغا حروف الجر باء القسم ايا جرت ايادنا بعد دارته سيده بالله الله ايان كدارته والله بالله ايان يراهدا والله بالله يا هوس دغا يا والله الله وحا هوس دغا واو القسم واوغا دارتا كجيرا بالله نواني راهدا وحا كجرة باء القسم بعد دارتا تالله نواني راهدا تالله الله وحا هوس دغيو وتاء القسم ايا جرتا وتالله تالله لأكيدن تالله لقد أرسلنا تالله الله ايان كدارتا تالله تادا سا وحا ليراهدا تاء القسم marka xarafada waxoos dhigaya kamid noqonaya تاء القسم سيدة الله باء القسم مقعده هوس دكتا سيدة بالله وحا مقعده هوس دكتا واو القسم سيدة والله وحا مقعده هوس دكتا اللامك سيدة لله لخالد وحا مقعده هوس دكتا كافك كالقمر كالبحر وحا مقعده هوس دكتا بعض بالبيت بالله وحا مقعده هوس دكتا رب يفي مركز درسيني سيدة حطبانات إنه كجا هذليني علمي جن نحوها كتاب كني متن الآجرومي يالكاسي نوجو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.